sida ee culayska loo ka qaad caada saareen marse oo ciidaha qabteen oo calahankeena urgufeen qawaariistana loo qoman jirin kayel qalqala la galiyo wadahanko dhan laga qabsado dadka shuhadadii ku geeriyootay dagaalada lagula jiro kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ayaa sanadkii labaad maanta lagu qabtay degmada Wisil ee koonfurta gobolka Mudug. halkan ayaa ka mid ahayd meelaha weerarada arxandarrada ah ay ka geysteen kooxda khawaarijta al-shabaab 27 Juun sanadkii 2021. xilligaas wixii ka dambeeyay shacabka gobolka Mudug ayaa u guntaday dagaalka lagala soo horjeedo kooxda argagixisada ah ee al-shabaab iyagoo dagaaladaas jab xoogan lagu gaarsiiyay khawaarijta dhul badan looga xoreeyay. kulanka xuska iyo ducada isugu jiray ee shuhadadii ku geeriyootay dagaalada lagula jiro argagixisada al-shabaab ayaa waxa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug, saraakiisha ciidamada, maamulada degmooyinka Wisil, Hobyo, Ceeldibir, Xerad Dahab, Qararow, Gawaan, Afgududle iyo deegaano kale. mas'uuliyiintii iyo maamuladii halkaasi ka hadlay ayaa wadajir u sheegay sida ay muhiimka u tahay in wadajir loola dagaalamo argagixisada al-shabaab oo ku soo duulay dalka, diinta iyo dadka Soomaaliyeed. وارلوها صور شيء ذات كاش وده الله حري الله بري الله حريصته المتان مقرر يصير معكم دفاع ذلك وذلك يا خوارسي الله لا بد أسوي waxaa kamida sifada lagu yaqaado yadcuuna ila kitaabillahi wa laysu minhu fi shay kitaabka ilaahay bay dadka ugu wacayaan xabadna kama jira kitaabkaas ay dadka ugu wacayaan waxa marka inta daawo soo baxo waxa laga rabaa dadka oo u qumay oo dhalinyarada ah oo reer Wisileed ah oo meel kasta ka yimid ama gaalkacaya meel kasta waxa la rabaa in nimanka loo dhabar adeego sidii ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu ku yiri ya ayyuhalladheena aamanu idha laqiitum fi'atan fathbutu warku ilaahay rasuul rumeeyro hadii kuwaas khawaarijta ama gaalada aad la kulantaan sugnaada oo cararinina weeye 24 saaca hal mar ay masaga karsadaan baa leeyahay hal mar wax ay haystaan male gaaja baabiiday marka taliyaha waxaan leeyahay amarkiisa hal la qaato marka saddexaadna hal la raaco maalkana hal la huro gabdhuhuna biyaha ha qaadeen intaas aan ku dardaarmayna marka walaalihii halka ku dhintay ilaahay ha u naxariisto jannatul firdaws al-a'la Allah u bishaareeyo dadkii ay ka dhinteenna waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo inta dhaawacantana Allah bogsiyaan leenahay waa in jihaadka ilaahay daraad u niyeysana ina maal ka helno ina waxa way waa la yiraahdo waa ninkaan waxa way waa nin geesiya la yiraahdo in taas waxa way ma waxa la rabaa in aan ciidanka iyo dadka oo dhan jihaadka loo niyeysto ilaahay daraadiisa ilaahay khawaarijta cadawga inaan ka difaacno ina u niyeysano baa waxa way aayada tani bayna tusinaysaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Galmudug waxa loogu fadhiyaa ayagana cadow lama dugsado in la ag fadhiyana dan kuma jirto waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad bulshada saan u diyaarsan hoggaan bay idinka rabaan inaad cadawgaas ku dareerisaan oo ku hogaamisaan bay idinka rabaan garaadaha waxaan codsanayaa dawladda federaalka iyo Galmudugba inay ku bixiyaan qobaha sida loo kala adkaysi badan yahay ee isa ku bixin qaraabo iyo hebel baa farsamo yaqaan iyo hebel baa waji lalayo iyo keenaysa ku bixin ay ku bixiyaan sida qobaha loo kala taagnaan badan yahay iyo sida naftooda loo kala hibeeyay reer Wisileed waxaan idka rabnaa laba dhinac bana u shaqaysiin tii horumarinta degmada ina gacan ka hormarisiin gacanna ina ku difaacdiin deegaanka oo runtii aad halka ka sii wadiin ilaahay ha u naxariisto dadkii meeshan ku shahiiday iyo dhammaan shuhadada ilaa badar ka soo bilaabatay ilaahay naxariista ku camiimo nimankan qoryihiina ka baqbaqtiyay geedahan iskaga jira waxay kor u qaadana la in hubkan laga soo qaato wajigii labaad oo dagaalkan loo diyaar garoobo dhammaan hay'adaha amnigu intaas waa isla qaateen
dhanka kale saraakiisha ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa wadajir u sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka wejiga labaad ee dalka looga xoreynayo argagixisada al-shabaab. dagaalkaani in muddo aan ku soo jirnay hamoodnina aan ka daalnay kama aan daaline maalin maanta ka dambaysa xiise gooniya iyo wuxuu nagu hayaa iyo baalka u jiray galgacal gooniya waxaana marka taasina dareentaan boorka waa jiifnaa adinkaan shaqaale inay nahay taas ogaada waxaan nahay shaqaale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay siiyay taas ku xamdiya alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan rabnaa dagaalka shabaab qawaariji waa meesha ugu dambeysay maraysaa yaa laga niyad jabin qoryaha la qaato gabdhaha iyo dhalinyarada iyo culimada iyo dhammaan waxaan rabnaa meel kasta la joogo in qoryaha iyo gaadiidka ay meeshaan ay soo dhoobeen inaan walaalayaal anaga noo keenana ka qaadataan anuu difaacan wax ku leernaa difaaca waa kala dadku dawladda difaaca waa ku jireen waana ku jiri doonaan waxaan u maleynayaa ciidanka intii joogta iyo intii dhimataba ducadoodu waa si loogu duceeyo weeye waxaan rabnaa dagaalka waa ku jirnay waxaad ogtihiin inaan annaga degmadan duulaan ka qaadnay oo madaxweynaha Soomaaliyeed noogu yimid ballantii madaxweynaha Soomaaliyeed aan ka ballan qaadnay waa oofinay Ilaahay waa noo nabad yeelay 12 baa nooga shahiiday annagoo nabadana waa ka soo dhamaanay degmadiina waa taa waa noo xor dheer waxaan kaloo fayska saddexaad ah fays hore fayskii labaad iyo koobaad iyo labaad waa soo marnay waxaan noo dhima fayska saddexaad asagana waxaan ballan qaadnay annagoo magaciina ku hadlayna inaan mar labaad dadka ceelbuur gaarsiino haddii Ilaahay insha Allah kariim. ugu dambeyntii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug oo soo gunaanaday kulanka ducada iyo xuska isugu jiray ayaa sheegay in dawladda galmudug iyo tan federaalka ay u diyaar garoobeen wajigii labaad ee dalka looga cirib tiri lahaa argagixisada al-shabaab. waxaan noo dardaarana noo balana inaan maanta festival ku qaadano maadaama Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qiyaamada ka rajaysaan janno adduunka la ariyo si loo macaashaan magacina meel la dhigin waxaan rabaa maanta u soo istaagteen saddex jibaarkii inta u soo istaagtaan insha Allah ta'ala inaan ugu hogaamsan jihaad oo ay maanta ciidanka halkaan taagan oo aan la'aantood horumar jirin nolol jirin in la soo garab istaago hiiliyo hoo lagu soo garab istaago ciidanka la keeno xoolaha la keeno dhaqaalaha la keeno ayaa loo baahan yahay. 27 Juun 2021 ayay ahayd markii argagixisada al-shabaab ay weerar nafla caarinimo ku soo qaadeen degmada Gusil iyo shacabka degan halkaas oo ka bilowday jabka shacabka Soomaaliyeed ay ku fahmeen in lagu diriri karo argagixisada al-shabaab waxaana guulo waaweyn laga soo hooyay dagaalkii ay hogaaminayeen dadka shacabka ah ee lala galay xilligaasi wixii ka bilowday kooxda maleeshiyada al-shabaab waxaana xuska sanadkii labaad uu maanta ku beegmay maalinta ummad badan oo muslimiin ay taagan yihiin banka Carafo halkaas oo ay qayb ka yihiin mas'uuliyiinta dawlad goboleedka galmudug iyo dad badan oo reer mudug ah oo maanta xuskaasi uga soo duceynaya shuhadadii ku geeriyooday dagaalada lagula jiro kooxda argagixisada ah ee al-shabaab. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.